هايا واي قفكي لا هدلايا ومشرح مدحوينه عبد الرزاق احمد حاشي مشرح بركه كما عديرها waan gartay musharaxii burka madaxweynihii ballanqaadka badan sameeyay mudana madaxweyne soo dhawow waxaan rajaynayaa Soomaaliya in bur badan laga cuni doono hadii lagu doorto codkana xageena diyaar waaye insha Allah soo dhawow waxaa ahay musharax madaxweyne dowladda federaalka waxaan rabaa inaan ballanqaadyo kala qaadano waa ku ogahay mudana madaxweyne waa ku ogahay inaad musharax tahay dadkii soo dhaweyntaada ka qayb galay maalintii aadan cadda ku taagnaa ayaan ahay waa soo dhaweyntaada waa la socday howlahaagana waa la socdaa mudana madaxweyne senator ma tahay ma hadda aniga senator ma ihi laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan xildhibaanada aqalka hoose ku soo baxo insha Allah oo koonfur galbeed soo matid maya aniga koonfur galbeed hadda ma ihi hirshabeellaan ahay codkaaga marka ay siisay lacag ama jawaab kii aragtidaan ku siinayaa inaan ballanqaadyo kala qaadanaa rabaa niyow mudan madaxweyne dad waxaa la ogaa intaan la gaarin doorashada in lacag la bixiyo oo musharaxiinta lacag ay dhiibaan haddii aadan lacag isiinin see kugu dooranaa waano lacag aadan isiinin yani hadda warkaaga waxaa u fahmay marka ay dooratid kadib aan lacag ku siinaa marka arrintaas arrin la qaadan kara ma aha mudan madaxweyne ya wax rasmi ah ii ballan qaadi karta ma jirtaa ama jago ama lacag kii aragti jago hadhow haddii codkaaga marka ay siisid aan jago ama lacag ku siiyo oo marka aan ku doorto kadib leema aad wax isiineebo oo ka hor la rabaa inaad wax isiisee niyo madaxweyne arrintaas suurtagal ma aha arrintaas suurtagal ma war kale ma haysaa marka codkaaga siisa kaliyaan ku siinayaa niyo inaan ugu kala waday tagaysaa wallahi because musharaxiinta kale lacag ay bixinayaan maxaa aad ku diiday sida musharaxiinta kale lacagta u bixinayaan ina u bixiso marka aad yani lacagta isiisa kadib aan ku doorto maxaa ku diiday maxaa uga duwan tahay musharaxiinta kale xasan sheekh maxamuud intuu lacagtii dadkii bay doorteen farmaajo marka codkaaga isiisida ana ku siinaya lacag adeerow aniga dadkii xasan sheekh iyo farmaajo joogay ma ihi nin jareeraan ahay dad la aamina Soomaalida dadka jareerta ugu wanaagsan shaashaa lay dhahaa kursigaas daan ku soo baxana codkayga waa helaysaa lacag ayaan u baahanahay ama lacagta kow isiinay af Soomaali maxay tahay kuye madaxweyne waxaas macquul ma aha aniga xasan sheekh iyo farmaajo igu soo tusaale qaadanine madaxweyne waa ku xushmeey dadka lacagay kala qaadanayaan wax ii sheeg aniga codkayga waa ku siinayaa nin burka nooga shaqeeyo wadanka nooga shaqeeyo oo wadankan faa'iidadiisa iyo waxagiisa nooga faa'iideeyay waa rabnaa anaga musharaxiintan qurbaha ka imaanaysa dhibtay aniga codkayga diyaar ku yahay laakiin lacagta waa inaad hormarisaa marka codkaysiisa kadib lacag ku siinaa maxaa la dhahaa ama hadda wax un isiin kartaa adiga wax un ama hadda isiin kartaa oo at least hataa ololaha doorashada aan ka dhigto lacag 200 kuna ma helaysaa oo doorashada ka hora markaan soo baxana waa ballan codka ku siinaya wixii kale dhiman doorashada kadib aan ka qaadanayaa ma lacag kale ma hayo walaalo waa lacagta dan ku soo waa siinaysaa soo maaha soo halo mudan madaxweyne halo isoo wuxuu yiri telefonkana waa damiyay kan koobeesa dhiibi rabo ma ninkii dooranaya say u taala laakiin ninkii lacag bixiyaan dooranaa aniga qof lacag ma laga maarmaayo nin lacag la'aan ma laga maarmaayo suurtagalna maaha marka ninkii lacag isii aan dooranaa